بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu joognaa maanta masaajidka weyn ee ku yaala magaalada Ottawa ee Scott waxaanu ka qayb galnay Allah u naxariistay marxuun Cabdiraxmaan Cabdi oo ku booliska ee Ottawa ay ku dhibaateeyeen ama ay ugu geysteen dib markii ay isku dayeen inay qabtaan waxa ka soo qayb galay aaska marxuunka Allah u naxariistay dad aad u fara badan waxaanu hadii Ilaahay yiraahdo isku day doonaa inta aanu kari karno inaan maaragtay aanu Soomaalida community-ga aan wareysano Bismillahir Rahmanir Rahim waxa weeye maalin Jimcaha waxa weyn waa 29 bishii 7 waxaanu maanta ka qayb galaynaa Allah u naxariistay marxuun Cabdiraxmaan Cabdi oo ku geeriyooday gacanta booliska ee magaalada Ottawa ee waddanka Canada Mr. Cabdiraxmaan Allah u naxariistay waxa ka soo gaaray in markii ay ciidanka booliska ee magaalada Ottawa ay isku dayeen inay xiraan ninkaas ka bacdina ay si xun ula dhaqmeen oo ay dhibaato aad u weyn u geysteen dhammaan jaaliyada Soomaalida iyo dhammaan warfaafinta waddanka Canada xoog ayaa looga hadlay ninka dhibaatada ka dhacday ama dhibka loo geystay ninka Allah u naxariistay ummad fara badan oo reer Ottawa ama ha ahaadaan dadka waddankan u dhashay ama Soomaalida ha ahaadaanbe waxay aad iyo aad uga xumaadeen dilkii iyo si loola dhaqmay waxa Cabdi ay dad fara badan ka duubeen fiidiyoyo ama sawirro ay ka qaadeen markii ay ciidanka booliska ee magaalada Ottawa ay damceen inay Cabdi xiraan ka bacdina ay si xun u garaaceen ama ay dhib aad u fara badan u geysteen taasoo Allah u naxariistay marxuunku uu u dhintay dhibkii ay boolisku ay u geysteen waad aragtaa imika dad fara badan ayaa ka soo qayb galay oo Soomaali iyo ajnabi leh waxaan isku day doonaa inaan hadii Ilaahay yiraahdo aan sidii aanu idinku soo gudbin lahayn warkaas aan isku taxalluujin lahayn aad iyo aad bay dadka ugu xumaadeen dhibka ka dhacay meeshaas waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii naxariista Allah ka waraabiyo Mr. Cabdiraxmaan Cabdi waxaanay ummadda Soomaalida ee waddankan ku nool ay iyagoo isku duuban ay aad iyo aad uga xumaadeen dhibka loo geystay ninka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah oo ay u geysteen ciidanka booliska ee magaalada Ottawa salaam sidaad aragtaanba waxa ka soo yahay waddankan oo aad iyo aad arintan waxa ay ka dhacdaa inta badan hadii aynu dhibaatooyinka noocan oo kale waxay ka dhacaan waddanka Mareykanka laakiin badanaa kama dhacaan waddankan Canada oo xagga booliska haday noqoto dhibaatada ay dadka u geystaan inkastoo dhibaato badan ay ka jirto dad hadana adigu waa ay dhaantaa sida maaragtay waddanka Mareykanka oo kale halkan waxaanu ku arkaynaa nin waxaad arkaysaa in maaragtay dad badan oo Soomaali ay wareysi ama interview ay siinayaan yani oo ay media aad iyo aad waddankan maadaama waddankan Canada waxyaalaha noocan oo kale hore looga baran waxay aad iyo aad ay cajiib ku noqotay ama jaaliyada Soomaalida ahaadaan ama dadka kale ee waddankan ku nool oo badanaa waddankan aanu jaarka nahay ee Mareykanka oo badanaa hadii jeer isaga lagu eedeeyay inay dhibaatada booliska iyo tacadiga ay dadka u geystaan siiba dadka madow ay aad ugu badan yihiin laakiin maanta waxa aad moodaa in arintaas arin uguba ku tahay ama way jiraan dhibaatooyin dhaca laakiin ay ku cusub tahay waddankan Canada oo aanay aad u badnayn dhibaatooyinka noocaas ka dhacay waddankan waad aragtaa dad fara badan oo Soomaali iyo ajnabiba ayaa ka soo qayb galay waxaad aragtaa miidiyihii halkan waxaynu arkaynaa dad fara badan hadii aad u fiirsato waxaad halkan ka aragtaa waxa weyn waa major miidiyihii ama miidiyihii waddankan oo dhan oo aad u xiiseynaya oo maaragtay arin ay la yaab ku noqotay ayaa hadda ka soo qayb galaya waxaanu dib in la soo socodsiin doonaa wixii soo kordha oo aad aragtaa inta kamarada ama inta media ay ka soo qayb gashay wallahi ummadda Soomaaliyeed aad ay uga xumaatay dhibkana Ilaahay ha ka qaado dadka dhalinyarada ee Soomaalida ee dhibka haysto waxaad moodaa sanadahan ugu dambeeyay inay dhibaatooyinka xoog ay u sii badanayaan oo ciyaalkii Soomaalida sometimes aad arkayso iyagoo jeelasha la geeyay waxaad arkaysaa dhibaatooyin kale oo badan oo dhacaya Soomaalida waxay tahay biyo ka badan iyo dad ka badan way ku hafiyaan marka waxaan malnayaa dhibkan ummadda Soomaaliyeed haysta Ilaahay ka dulqaado waxaan u badan yahay dhibkano ama ay waddan ummadii ay ka badan tahay
oo dadkii reer dhaqankii marka inkastoona cabdi aanu ahay nin arrintaas ku guda jiro cabdiraxmaan cabdi oo ahaa oo in badan anigu mar aan dhegaysanay dad badan ay wax fiican ka sheegayeen oo ay lahayn ninkan nin dhib badan mu ahayn haddana waxa weeyaan dee wax dhiba oo ma jirto laakiin waxaan haddana aan ku soo dhoweynayaa microphone oo ka mid ah dhallinyarada magaalada tan Ottawa fahmi bal ayaa waxoogaa inooga sheekay السلام عليكم دمان مسلمين تاجوكتا ميل كاستاي جوغان دنيدا سوماليدا دمان waxaan salaamaya wadamada islaamka السلام عليكم ورحمة الله والله إن الله وإن راجعون كاسي عبد الرحمن ونين ده أديو والله ونين مسلم وهاني سومال وناكسم وهاني نسكا مقرانا سا ده معجزة waxay ku dhacday waa mucjiso xagga Allah ka timiday taasina horaan loogu sheegay in aynu de ayadaheena quraanka iyo diinteena buu ku sheegay marka wallahi samir iyo iimaan baan dadka uu ehelkaasi uu ka dhintay sida reer iyo caruurtiisi iyo waalidkiisi iyo yaashii iyo walaalihiiba ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo ilaahay jannada ha ka waraabiyo naxariis jannada ha siiyo dhammaan wixii ummadda islaamkaba ay joogaan ilaahay iyagana ha u soo duceeyaan imikana waxaan isku dayi doonaa inaan mikrofoonka la dhex marno jaaliyadda Soomaalida aanu bal marka aanu wareysi waxoogaa la yeelano intii ay noo suurta gasho Allah ha u naxariistee waxa aad hadda in sidaad wada aragtaanba in meydkii marxuumka oo hadda masaajidka laga soo saarayo ayaad aragtaan ilaahayna waxaan uga baryaynaa ilaahay jannadii naxariista ka waraabiyo waxa marxuumka dishay gacan xaq darro oo ka xaq daran marka ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay samir iyo iimaan ummadii jaaliyadda Soomaalida oo uu ka siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna ilaahay waxaan leenahay ha u soo duceeyaan la ilaaha illa allah waxaad aragtaa in dhammaan jaaliyadda Soomaalida ee magaalada ay xoog aad uga soo qayb gashay marka waa maalin jimca waan u soo duceynaynaa marxuumka ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo eheladiisa iyo qaraabadii uu ka geeriyooday assalaamu calaykum mikrofoonka ku soo dhaweynaya ragga ugu weyn ama jaaliyadda Soomaalida ee Ottawa oo ay ka mid yihiin Cubayde ilka case iyo dhammaan jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Ottawa waxaan doonayaa balin qof walba maanta dareenkiisu yahay uu noo sheego waxaanu ku bilaabaynaa السلام عليكم horta ninkaas xaq darada lagu diray kulli waa kii sheekhuba sheegay kolka samir baa loo baahan yahay kolka in maxaan ku dhahdaa de wixii laga yeeli lahaa dawladuna de wayidno inay shaqadeeda qabsato kolka waxaan u maleynayaa inay hawshaas si fiican u dhici insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد تعسيدة إنا لله وإنا إليه راجعون سمر بالينوغا باهن يهي سمر بالينوغا باهن يهي إنغنا وحينو باهن هاي عدالة justice enough for everybody waxaan u baahannahay cadaalad ilaahay dadkii samir iyo iimaan annagana naga siiyo reerkoodina ha ka siiyo samir iyo iimaan ilaahay rabbigay ku u naxariisto isagana Allah ka dhigo Soomaaliya sida isu dhaan Soomaaliya iska warhay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أذيرن ku raacsana intuu yiri xaajiga runtii Allah u naxariisto wiilkan walaalkeen magaalada ku dhintay cidii maartay
familkiisana ilaahay qalbiga uu qaboojiyo annaka community-ga magaaladan Ottawa degan Soomaalida haddaan nahay kulley wax aan xoog saarayna sidii xaqa iyo xaqdarrada ninkan ku dhintay sidii ilaahay maartay noogu sahli lahay aan u daba taaganahay dhinaca kale dhinac Canadian-kan kala midnahay dhinac waxaan kala midnahay dadka Ontario degan dhinac waxaan kala midnahay dadka Ottawa degan khaasatan inaan arrintaas daba istaagno xaqa walaalkeen ilaa la helo sababtoo ku dhintay gardarro mid ay tahaba intaas maartay aan jaaliyada far lahay midda kale waxa Soomaaliya haddaan nahay badanaa aan wax ku raadinaa waa wax qaylo iyo dagaal iyo maartay banaanka in la istaago taasna macnaha waddankeena iyo Afrika sida ay taagantaa waa ognahay arrinta kale oo meesha loo baahan waxa waa si caqli ku jiro in loo xisaabtamo oo loo raadiyo xaq jaaliyadu ay ku leedahay dhibaatada kaalinta ay jaaliyadu ka qayb qaadan karto maartay arrintan dhacday magaalada oo tragedy-ka intaasaan hadalkay ku soo baxa insha Allah walaashayna u gudbina بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون halkan waxaanu isugu nimidnay maanta oo Jimco ah bisha 29 tahay July aaskii marxuunka gacanta ka xaq daran dishay marxuun Cabdiraxmaan Cabdi oo walaalkeen ahaa oo anigu khaasatan aan si gaar ah u garanayay buildingka uu galo aan asxaab ku leeyahay oo aan meel aan aad u tagi jira ay tahay marxuunkaana in badan aanu iska soo horbixi jirnay marxuun ilaahay ummadiisuba ka nabad gashay nin iska degan wixii dhibaato ilaahay ku keenay ee maankiisa ku keenay isaga uuni u gaar ahaa reer wanaagsan oo ballaaran ka dhashay aan cidna dhibaato u geysan caruur baa ku ag ciyaari jirtay dad waaweyn baa ku ag socon jiray habeen baanu ag mari jirnay saddexda habeennimaan marmar elevatorada ku kulmi jirnay wax dhibaato ah oo cidna u geysanayay ma aanay jirin wuxuu ahaa nin ilaahay uuni ugu talagalay inuu maalintaas sidaa halkaa sababtaa ku dhinto oo gacanta ka xaq darani ay disho ninna cambaareen mayno oo odhan mayno askarta qudhadiisu waxay u soo kala laheen in ay saaka qof nafta kaga qaadaan ee wax la kulmay uun ay tahay tababar xagga dawladda iyo xagga maxaan ku iraahdaa ammaanka iyo askartan sida loo tababaray ay kullayba wax ka khaldan yihiin meel walay joogaanba baanu eeda saaraynaa waxaanu leenahay oo aanu weydiisanaynaa in siyaabaha loola dhaqmo bulshada si looga bedelo si wanaagsan loo bedelo ninka waalani dawladna ma garanaya askarina ma garanaya naftaada la baxso lagu qabayo waxaan ahayn uu garanayaa ma jirto subaxu ma waagu markuu bariyay dharkii uu gashaday uu nabad ku baxay uu isiri kofi soo qabso waa niman xuskiisu ku filayna gacan haduu fidiyo qof taabsaday kama dhignayn cid buu dilay mana deserve garaynin inuu sidii a wild beast ugu dhinto laamayda hooyadii horteeda ay naftu halka intuu galgasho ay kaga baxdo looguma ma ahayn wax u deserve gareeyo laakiin waa wax dhacay nin walibana wuxuu ku dhimanayo ilaahay baa og garan maynayno marka waxaan leeyahay ilaahay marxuunka aakhira meel sana ka dhigo aakhira ilaahay meel sana ka dhigo qabriga ha waasiciyo dambigiisa dambi muu lahayna dambigiisa ha dhaafo waalidiintiisa iyo dadkii iyo bahliyadii iyo jaaliyadii uu ka baxayna samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo waxaan leeyahay intaas anigan ku gabagabaynayaa tacsida waa inoo taala Soomaali sidan sida isugu dhaamaysana ayada u taala in la is urursado oo la yiraahdo no to this no dooni mayno halka waxaanu nimidnay nabadgelyadii aanu nimidnay waxaanu rabnaa inaanu noqono good citizen haddaan noqon lehna hala noo allow gareeyo inaanu good citizen noqono askartu yaanay caruuraha iyaga laamida ku laynin xaqa iyaga yaanay qarinin ayaanu leenahay marka inta ka iga dambaysaan u dhiibaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun dhammaanteen bad geeri baynu sugayso taas waa dhab waxaynu ku kala duwannahay inaynu xaq darro ku dhimanno iyo inaynu labadaba tii ilaahay baa keenay inaynu ku dhimanno waxaana runtii hadalkii dhammaysay dhinac kastaba ka hadashay danjire luul oo si kastaba waagtay ta ugu weynay maantana aynu tusnay waxa weeye ciddaynu nahay halkaynu ka nimi waddankaynu nahay ciddaynu ku magac aynu ku abtirsanno gaalku wuxuu noo arkaano isku mid marka waxaan jecelahay inaan dadkeenu ogaadaan xaggooda ma kala duwanid reer hebel iyo reer hebel ma tihid reerkan iyo reer halkan ma tihid addoon yaroo madowun baad u tahay marka dadkeennu in ay had iyo goor iska war hayaan oo aanay odhan
hebel haa igadaa arrintaa tegi maayo maaha reerkayagii amba maaha waddankan amba maaha iskuwada mid baynu nahay say noo arkaan waxaanan ku rajo weynahay inaynu sidaa maanta aynu muujinnay in aynu isku mid nahay in aynu isku ra'yi nahay in aynu wixii gardarro ah wixii xaqdarro ah meelaynuga soo wada jeedno dhammaanteenba waynu tusnay innaguna waynu istusnay waxaanan ilaahay ka rajaynayaa inaynu halkaa ka wadno oo aynu iska warhayno oo maalinta midkeen waxay ku dhacdo aanaynu waabtirin inaynu isberber taagno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aniga magacayga yuusuf sadiiq baa la yidhaahdaa marka koobaad innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuuna qalbigu wuu tiiraayeysan yahay ishuna way ooyeysaa walaalkeen cabdi walaal xaqdarro lagu dilow ahaa laakiin waxaan uga gudbi karnaa annagu kanadiyaan baan nahay we are Somali Canadians very clear Somali Canadians ayaan nahay dalkan baan ku nool nahay meel aan uga soconnaahuna ma jirto halkaanu ku wada aasayaa badankeen marka walaalaha Soomaaliyeed oo reer Ottawa iyo inta Canada ku nool baan waxaan xusiisinayaa maadaama aanan meeshan ka tegayn in aan ka waantowno oo aan ka harno siyaasadaha madaxa ku socda ee geeska Afrika wixii Soomaaliya la dhihi jiray aanan ku kala qaybsamin sida maanta aan isugu nimaano aan noqonno hal xisbi hal urur hal Soomaali markaasaan guuleysanaynaa ninka halkan jooga oo askariga ah nin moodoobo noo yaqaana Soomaali waqooyi iyo Soomaali koonfur iyo Soomaali bari ma kala yaqaano Soomaali baad u tahay waxaan uga badbaadi karnaa wixii walaalkeen ku dhacay annaga iyo ilmaha iyagu waxaan uga badbaadi karnaa waa isku xirnaansho waxaanan ulu ku baabi'i karaa kala qaybsanaan aan isu tagno waxba ma kala nihin walaalaan nahay Soomaali baan wada nahay meesha rabtid ka imow daa rabtid dhulka xataa la haysto Kenya Ethiopia meesha rabtid ka imow Soomaali waay marka walaalkaas Allah u naxariisto intii ka soo qayb gashay ee aaskiisa ka soo qayb gashay maalinta qiyaamo miisaanka Allah u saaro sidaas aan isugu nimid oo reer Ottawa aan isugu nimid ayaan ku wanaagsannoon mid ku nahay marka waa mahadsantihiin dhalinyarta duubaysa maxaan ku raday kaamirada waqtigooda soo galiyay waxaan idin leeyahay adinkana ilaahay maalinta qiyaamo ajar haydan ka siiyo waana aad ku mahadsantihiin ka qayb qaadashada aad ka soo qayb qaadateen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh